tan iyo markii ay meesha ay ka baxday dowladii dhexe ee dalka Soomaaliya ka ariminaysay waxa geyga Soomaaliyeed uu noqday midaan lahayn nidaam dowladeed iyo waliba kala dambeyntii dunida ay ku taqiinay ummadda Soomaaliyeed iyadana Soomaaliya loogu magac daray qaran fashilmay dhibaatada ku habsatay ummadda Soomaaliyeed waxa ka faa'iideystay dalal badan iyadana Soomaalida dhexdooda lagu shiday dab waxaana sidoo kale qabaa'ilka Soomaaliyeed maskaxdooda laga tirtiray qiimaha wadaniyadda iyo waliba dawladnimada dagaal sokeeye ayaa la geliyay qabaa'ilka waxaana la dhaxdhigay colaad sokeeye waxaana ugu dambeysay tii dhawaana ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo waliba midii dhawaana la soo afjaray ee ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan beesha caalamka iyo waliba dalalka jaarka la Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin kuwa isku shidaya beelaha Soomaaliyeed balse Soomaalida wali ma aysan garan dibindaabada iyo waliba siriqda loo dhigayo ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya waxa loo diidan yahay inay dhisato ciidan cudud leh oo majraha u qabta amniga guud ee dalka taabadalkeedna waxa dalka lagu soo daadgureeyay ciidamo ajnabi ah oo lagu bixiyo lacag xad dhaaf ah halka askariga Soomaaliyeedna loo leeyahay mushaar $100 dawladda dhexe ee dalka iyo waliba shacabka Soomaaliyeed waxa ay garan laayihiin inay maarayaan mushaaraadka ciidankooda falal amni dara ayaa mararka qaar waxa uu ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya falalkaasi qaarkooda dadka ku xeel dheer amniga waxa ay ku tilmaameen in laga hortagi karay balse loo sababeeyay ciidamada oo waajibaadkooda sidii la rabay aan u gudana sababa xagga mushaaraadka haddaba dhaqaalaha dekada magaalada Muqdisho iyo waliba airportka ka soo xarooda waxa habboon in la geliyo amniga muwaadinka Soomaaliyeed sidaas waxa qaba siyaasiga Cabdiraxmaan Baadiyo dagaalaha Muqdisho ka dhacaya ka mas'uul lama yaqaan yaa shaqada iska lahayd lama yaqaan marka waxay noqotay ka annama dadku ay u sameeyeen ba mas'uuliyadda ay noqotay mararka qaar dawladdu waxay eedeysaa shacbiga eedeysaa soo sheega leesoma dayaal loo sheegay soo ma asaad shaqayhayo oo shaqo qabsan soo laga marba ay ka mas'uuliyad soo ma saarno lacagta canshuuraadka laga qaado dekada iyo airportka waxa ugu horeeyay in la geliyo ay taa waa amniga muwaadiniinta saadarteed ana waxaan qabaa inay justification habay sabab ma laha amniga Muqdisho looga shaqay waayo aniga uma jeedo oon ahayn shaqo xumo ma u jeedaba Hashim Abdullahi Abdi waxa uu bare uu ka yahay mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul isla markaana si wanaagsan ayuu ula socdaa xaaladda dalka Soomaaliya وين كذا نقصد الشقيان بوليس وين الشقيان إذا ما دخلوا إن الشقيان وإحنا قلنا إن حلو عيدا خياله كواسو كفلا إن سوى الأمن دور شرب حلال عليك في مركز وقف ولا وقف وضيع كرو وعيدا كان يجي سودان نور في عن باله هلي مركز تذكر الماضي بدونا نسكت أسكري سبارة رجلا وحكينا يسوع أسكري مش علانه مركز دخلها على وضع الصورة هذا ما مهم كه حديث سوى نفس الله لو معموله عن فيليا إنه ذاك جاي كرو سوى نفسه الشعب كان وعيه بحيان عن شرط الأولى مدام دكامة كان على الستة شركة وين تليكوميونيكيشن وعيه بحيان عن شرط كده كان دولة لما كان سيدنا سوى نفسه يوم ما مشوا هذا مهم badii Soomaaliya iyo waliba dhulkii qiimaha badnaa cadow ayaa marba meel sheeganaya siyaasiga Soomaaliyeedna xaalkiisa waxa uu noqday inuu ka fikiro dantiisa gaarka iyo waliba midda reerkiisa tii qarankana meel ayuu soo dhigay Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul